magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmay bandhigga buugaagta ee Hargeysa Book Fair oo sanadkani halkudhigiisu ahaa darisnimo waxaana marti ku ahaa sanadkani dalka Itoobiya waxaana munaasabada furitaanka ee bandhigga buugaagta Hargeysa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada mas'uuliyiin ka socday dalka Djibouti wakiilkii hore ee midowga Yurub u qaabilsanaa Somaliland iyo Soomaaliya qoraayaal caalamiya iyo mudan iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Jaamac Muuse Jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa oo isagu soo qaban qaabiyay bandhigani sanadkii hore isugumay niman sidan oo kale sababtoo ah saradii adduunyada kala joojisay daraadeed ولينا تاجن أنت نسقمين نانيمان واحد وحيابي يقول روح تبدنا سنة كي هراء أنا شرطو بين صدق حيتهم سنة كدي مركز نسيسو نقول إن سنة كيستي سقوي من إني هالكان إن نقول يسود ما يسترنا عن نسيو من لكن هذا نسيون نسيسو قارني أما هنقد التكنولوجيا أما هنقد الفريمة اللي يسودي رأيه إن أنا نسيو واحد ولا يسكين يقول خراب بدنا يقول دعيبه هاي روح أنت نلاقي عن لك واي لكن ما أنت الحمد لله رب العالمين ومالين رفدايو ومالين نسقوني مي بندق أفريقيا بنات بندق عالمي جه بوجاك هرجيسا وقيب النقطة تاريخ قرن كان يومدنا إنه علن كذا يومدني ماذا يجريتان كذا يكسنا إنه geestooda waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland mas'uuliyiin ka socday dalalka Djibouti iyo Itoobiya iyo sidoo kale maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge sharaf weyn bay noo tahay kulligeen inaynu isugu nimaadno xafladan qiimaha badan oo uu soo abaabulay oo aanu mahadnaqayo gudoomiyaha Jaamac Muuse Jaamac waxaynu u baahannahay inaynu noqono dad wax iska faa'iida haddaynu nahay Somaliland gudaheeda iyo haddaynu nahay dadka deriska ah ee Djibouti iyo Itoobiya ay ugu horeeyaan waa markii shanaad ee ka soo qayb galo marka waxaan salaamayaa saaxiibaday Jaamac Dr. Edna oo iyagu ku mutaystay inay qabaqaabiyaan maantana ay tahay tii 14aad aanu wada joogno qolooyinkiina ay ugu horeysay inay markii ugu horeysay soo booqataan Hargeysa waxaan idin kale idinku soo dhaweynayaa martigelinta caanka ah ee lagu yaqaan dadkayga waxaan rajaynayaa in nala wadaagtaan maalmaha halkan joogtaan nabadda aanu haysano sidoo kale waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo iyagana oo aan soo dhaweeyo dadka halkan ka hadli doona inta ay socoto bandhiga buugaagtu uu socdo iyo sidoo kale dadka khabiirada ah iyo kuwa soo abaabulayba waxaana si gaar ah runtii ugu mahadnaqayaa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo dadaal badan ku bixiyay in book fair kan taariikhiga ah ee weyne inuu sanad walba ka dhaco magaalada Hargeysa aanu jecelahay waxaad ka warqabtiin oo runtii aan u baahnayn inaan wax badan halkan ka sheegno xiriirka ka dhaxeeya Itoobiya iyo Somaliland oo ah mid intii Somaliland jirtayba ka dhaxeeyay isla markaana wax badan ay isweydaarsanayeen haddaan meel gaar ah ka taabto xagga nabadgelyada xagga maxay ahayd ganacsiga iyo xagga isdhexgalka bulshada waxa iyaguna bogaadiyay bandhigga buugaagta ee Hargeysa mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb gashay bandhigani daris wanaagu dhaqaalaha ayuu isu furaa nabaddu sii kordhiyaa dadku sii baraa shaqo abuurku sii kordhiyaa waayo wadamadu markay dan wada yeeshaan ayay nabadana wada yeeshaan markay dhaqaalo wada yeeshaan ayay is ilaaliyaan markay cirka diyaaradahoodu marayaan nabadda dhulka hoose way dareynayaan markay badda wada wadaagaan way isku xidhnaanayaan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxaan runtii aad sharaf weyn maanta inoo ah inaan maanta ka soo qayb galno Hargeysa Book Fair sanadkii 14aad oo maraya oo runtii xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay
aad u qiimo badan waxaan marka hore u mahadnaqayaa jaamac muuse jaamac oo ah aasaasaha Hargeysa Book Fair ama bandhigga buugaagta Hargeysa oo runtii nin aad u qiimo badan saa la wada sheegay qarankuna runtii qaranka Somaliland mahad weyn ugu hayo adkaysiga badan iyo halka ka soo bilaabay iyo muddo dheer oo soo wada hawsha ay ka mardhaliyay inuu maanta indhaha caalamka ku soo jeediyo Somaliland iyo caasimadda Hargeysa ee Jamhuuriyadda Somaliland. Axmed Maxamuud Dool, MMTV, Hargeysa.